daawadayaal ku soo dhawaada saxafi films oo ka barateen barnaamijyada aynu kaga hadalno aktarada shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya. daawadayaal barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa Salman Khan iyo Shilpa Shetty oo eedayn dusha laga saaray kadib markay aflagaadeeyeen qoomiyad kamid ah qoomiyadaha dalkaasi dega ee Valmiki, waxaana eedayntaasi u soo jeediyay Rajasthan Police. gobolka Rajasthan Police-ka ay leeyihiin jilaaga caanka ee Salman Khan iyo atirishada caanka ee Shilpa Shetty labaduba waxaa lagu eedeeyay in ay sameeyeen falal cunsuriyada oo ay ku kala faquuqayeen bulshooyinka dalkaasi ku dhaqan ee India. haddaba arrintan waxa ay soo baxday kadib markii lagu eedeeyay jilaaga caanka ee Salman Khan in ay u isticmaalaan ereyga bangi ee abakhayltinimo amaba qof aan nafsadiisa daryeelin. hadalkan ka soo yeeray jilaaga caanka ee Salman Khan waxa uu ahaa mid la yaab leh, isaga oo marar badan heesa uu qaaday amaba dhaansi uu sameynayay ay bulshooyinka Valmiki eeda badan ka tirsadeen, isaga oo markaasi aanan u fahansanayn in ay arrintaasi dhaawac u geysanayso qoomiyadda Valmiki ee dalkaasi ku dhaqan. haddaba sidoo kale atirishada Shilpa Shetty ayaa iyadana show ay ka qayb gashay waxa ay ku soo bandhigtay qaab ciyaareed ay aad u necab yihiin qoomiyadda Valmiki, waxaana lagu eedeeyay in iyaduna ay cunsuriyad u geysatay Valmiki. haddaba eedeymahan loo soo jeedinaya labada jilaa waa Salman Khan iyo Shilpa Shetty waxa ay ku noqotay lama filan, balse Shilpa Shetty oo arrintaasi raaligelin ka bixinaysa waxa ay tiri ficiladii iyo ereyadii aniga afkayga ka soo baxay ma aanan u haysan bay tiri in qof bini aadana oo dunida korkeeda saarani ay dhaawac u geysan karaan ereyadaasi. aad ayaan uga xumahay bay tiri, waxaana ka raaligelinayaa dhammaanba intii ka xumaata bay tiri qaabjiliinkayga iyo hadalladii aniga iga soo yeeray. waxa ay intaasi u sii raacisay in aysan mar dambe arrintaasi dhici doonin oo ay halkaasi ku hakin doonto maadaama dad badan qalbiyadooda ay dhaawac u geysatay. haddaba arrintan Salman Khan ma ka hadlay mase waa uu ka aamusay? Salman Khan arrintaasi waa uu ka aamusay oo waxa uu sheegay in eedeymahan loo soo jeedinayo iyo qoomiyadaha eedaha ka tirsanaya ciyaarihiisa iyo hadallada ka soo yeeray in uusan haatan la hadli doonin, balse markii baaritaan dheer uu sameeyay kadib waxa isaga lagu eedeynaya iyo ficilada uu sameeyay iyo xiriirka ka dhaxeeya qoomiyadda Valmiki ee eedeymaha u badani ay ka soo yeereen isaga iyo Shilpaba lagu eedeynayo uu ka hadli doono. waxa uu yiri cabashooyinkan waa aan maqlay buu yiri ay aniga iga cabanayaan buu yiri qoomiyadda Valmiki ee ku dhaqan dalka haatan aynu degannahay ee India. daawadayaal barnaamijkii aynu kaga hadlaynay Salman Khan iyo Shilpa Shetty oo eedeymo cunsuriyada loo soo jeediyay kadib markii qoomiyadda Valmiki ay u arkeen in ciyaarahooda iyo hadalladii ka soo yeerayba iyaga hadalkaasi lagu durayay. daawadayaal barnaamijka intaas ayaan ku gabagabaynayaa. waxaad barnaamijka idin daadihinayay anigoo Caaqil Cabdifaarax. waxaad ka daawanayseen saxafi films oo aalaaba aad ka dhaataan dhacdooyinka la yaab kale iyo kuwa ugu xiisaha badan ee ka dhaca dalka India, gaar ahaan shirkadda Bollywood ee filimada samaysa iyo shirkadaha kale ee xarumahooda ay dalkaasi ku yaalaan. daawadayaal inagoo isku duuban oo abaada saxafina intaynu barnaamijkan lamid ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo.